عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Language College Hargeysa. aad baan idin wada salaamayaa dhammaan kusoo dhawaada. Today's lesson inshallah waxaanu qaadan doonaa 5 steps to learn a new language. Marka shanta talaabooyinka la qaato ee waxbarashada luqad kasta ha noqoto waxaa jira shan sifooyin oo aad u muhiim ah maanta doonayaan in la wadaago. Marka inshallah inta soo galayso oo dhanba aad baan idin wada salaamayaa soo dhawaada. marka maanta idinga weydiinayaan magaalada soo qortaan ma sha Allah inta magaalooyinka dhowr jeer baad soo qorteen waxaan doonayaa yara kala ogaado inaad arday online ka tahay iyo inaad arday cusub tahay marka haddii aad tiraad waxaad ku soo qoraysaa comments-ka arday hore ama arday cusub labada ku soo kala qor insha Allah ama arday hore ama arday cusub insha Allah aadna waan idin wada salaamay ku soo dhawaada. So today we're going to learn 5 steps shanta talaabooyin ama shan talooyin aan idin siin doono insha Allah luqad kasta noqoto barashadeeda. ardayda inta badan waxay la dhiban yihiin luqadahan imika ay u baahan yihiin bartaan hadday noqoto af Englishka ama af Carabiga waxyaalaha ka hortaagan caqabadaha barashadii luqadan waxay noqotay hawl aad u adag arday fara badan oo qaar 4 sano 5 sano soo dhiganay haddana waxay ku leeyihiin macallin meel aanu gaarnay wali ma arkaan ama wax aanu taaban karno ma hayno marka waxyaalo badan baa ardayda ka maqan marka waxaanu jecelnahay inaan insha Allah maanta aan dila wadaago talooyinka insha Allah soo dhawaada. عمر محمد ساوث أفريقيا بنكون سلامية عبد الفتاح كون سلامية محمد عبد السمد أرضي عصب جزاك الله خير نورهان أرضي عصب ما شاء الله بعد سوق القرطان هاي إن شاء الله شاركني نوتا بتفضل شارك مركز تعاوتان تضفر بدن باك فايدة سندونا عشران تنفريقة سادو وقتينا فيسبوك وحنو جرى الله بقول يا فرتن 10 فريا مركز دعوان كرتان انتي سوق لسنة واحد قرطان إن أرضي عصب تهاي أما أرضي هورو ديكتي كوليج الله بداس ما كانوا قانا إن شاء الله أنا سكب لابنا مركز a new language marka English baan ugu qoray laakiinse talaabooyinkan ama talooyinkani luqad kastaba way soo hoosgaleen luqad kasta doonaysa aad baratid sifooyinkan haddaad fahamtid hawsha aad bay ku fududaanaysaa insha Allah okay marka haddii aad Carabi baranaysid iyo haddii aad English baranaysid iyo haddii aad af Chinese baranaysid luqadda aad baranaysid ba haddaad jadwalkan raacdid insha Allah talaabooyinkan aad qaadatid waxyaalo badan baad ka gudbisa. So let's begin. ما شاء الله كومنت كم كسبوا بتين أدبوا ما سنتين جزاكم الله خيرا وده أرضي عصب أرضي هوري ما شاء الله أرضي هوري ما شاء الله مركز كل حشران قار بدنا عصب يدور أرضي هوري أونلاين كل يجري أدبنا دي والسلامة. So when we learn a new language طلابة الكود وحويان confidence مركز محل ده وكلسوني أرضي أنت بدنا مركز نركو لقطة برشة ده هم وين بيوهيان أما حيسة وقبان لكن مركز سوق قلان ama haday noqoto classes la soo fariisanay macalinka online ha ku dhigtaan waxyaalaha waxay maada khajalaad ka baqidii inay qalad galaan marka ardaygu waxay ku noqonaysaa xakad wixii uu ka gudbi lahaa haduu mar walba ku fikro talomaad qaladay maad saxday say noqotay qofkaasi marka kalsoonida ka yar maqan waxaan kalsooni waxay u baahan tahay qofka inuu isku dayo waayo marka hore qaladaad fara badan way imanayaan laasim lagama sugayo inaad markii hore wixii aad saxdid ardayda hore ay dhiganasay koleemka ku jirto way garanaysaa mar walba waxaan ku dhiirigelinaa inaad qaladaadka aad la qabsatid qaladaadkan aad galisid la qabso ku celceli ilaa inta ka saxmayso insha Allah iyo talaabada labaad be patient okay be patient sabr arday fara badan waxaan arkaa markay soo galaan ama online-ka ama luqada doonayay bartaan ama iskuulada kala gala waxay doonayaan wixii inay 2 bilood 3 bilood ama 6 bilood inay ku dhameystiraan waa suurtagal ardayga hadduu meel fiican taagan inuu 6 bilood ku dhameystiri karo laakiin arday waxaad arkaysaa ABC ama xagga ugu hooseeyo kornay macna 3 bilood ama 4 bilood maad ugu dhameyn karto suurtagal ma luqadani waa sida xirfad oo kale xirfadan waxaad doonaysaa inaad noloshaada oo dhan aad ka faa'iidaystid marka wax noloshaada mustaqbalka dhow iyo dheerba faa'iido ku noqonaysaa siro kooban lagu helo wax walba wanaagsan adduunka iyo aakhiraba siro fudud lagu helo wax walba dadaal bay u baahan tahay sabrna way u baahan tahay su'aaladan disaaniga macallin mahdi ahaan anu deerar hargeysaan ku dhashay dadkii barigii ka qaxay baan aanu shinjiraan wadanka ka qaxnay waxaanu tagnay wadanka Hollandiiska okay marka ilaa shinjirkayga Soomaaliland baan joogay wadanka markaan joogay shinjirkayga af Soomaaliyan ku hadli jiray laakiin markaan luqadii aan bedelayay ama luqadda Hollandiiska baranay aad bay u adkeed luqadda Hollandiiska waayo wax cusub adoo shinjira adoo Soomaaliga iminku la qabsaday 2-3 sano baan hadlayay haddana lagu raaco luqad kale cusub baro
welibana cid kuu turjunta ama cid ku fahansiisa aanay jirin walo inkastoo ciyaalka yarara luqadda iska yara fududaya hore u bartaan alxamdulilah sanad gudaheedba si fiican baan ugu bartay laakiin waxaan ka soo baxay luqadda Hollandiiska welibana way ka adag tahay luqadaha kale kolay waad garanaysaan Jarmalka oo kale ama Netherlands aad bay isku dhayn waa hu khaateed khaat khud husid macha waa khu khawayaan marka luqad fudud maaha kadibna waxaan u guurnay waddanka Ingiriiska anoo 12 jira 17 baan ahaa 17 jir markii dambe aan Ingiriiska u guurnay haddana xaggaasaan u joognay 12 sano haddana waxay noqotay luqad kale oo cusub inaan barto marka ardayda markaan idinka taladaysa inaan dileeyahay luqadda barashadeeda anuguba ma ihi qof luqadda English u dhashay 12 sano ku noolaa Ingiriiska laakiin haddana anigaba waxay ku noqotay anoo qof weyna inaan luqadii barto marka caqabadaha idinku aad soo maraysaan ama ardayda soo marayaan waan fahmi karaa laakiin qof imika native oo kale inta badan marka la keeno oo British ama American oo luqadii ku soo dhashay ku soo barbaaray dhibaatooyinka idinku aad maraysaan isagoo ma fahansana waayo orodii markaad u eegtid adigu waad ka horeysa anu waxaan u arkaaba inta badan macallimiinta Britishka ama macallimiinta Mareykanka ee ka yimaada waddankeena ku soo noqda luqadda ardayda u dhigayaan iyagu luqad kale ta yaqaanaan adigu waxa laga yaabaa Soomaaligii Carabigii Englishkiina kii saddexaad imika aad baranaysid orodii 2-3 luqadood baad taqaanaa waad ka horeysa marka kalsoonida inay ku soo noqonaysa orodii luqadan aad baranaysid waa inaad fahantaa inaad dad badan adigu aad ka horeysid waayo qofkan ku dhigaya hadduu native yahay waxa laga yaabaa isagu luqad kale Englishkan buu yaqaanaa adu laakiin se 2 ama 3 baad taqaanaa marka orodii IQ ahaan marka loo eego halka language waad ka sareysa marka waxba hays hoos dhigin haarin qofka cad uu iga sareeyaa ama iga wanaagsan yahay maaha adigii baaba luqada ka fara badan yaqaan marka anuguba luqada English waxaan ku bartay 17 jir marka 2 luqadoodna iga horeeyeen af Soomaaliga iyo af Hollandiiska ama Dutch waa Hollandiiska weyn idinka ku soo biirs marka waad fahmi kartaan caqabadaha ka hor imanaya marka waxaan ugu soo arkay marka waxaan doonayaa talooyinka in la wadaago insha Allah waxyaalaha anigu aan ka faa'iideystay aan luqadda English ku bartay luqadda Hollandiiska ku bartay imikana Carabiga aan diyaarinaya insha Allah inkastoo imika Carabiga baan ugu dhignay laakiin anigu waa arday baan ahay marka soo dhawaada ma sha Allah very good new student aad baan idin salaamaya dadka soo galo dhan iga raali noqdo hadaan salaamaha idiga gaarsiin kari waayo laakiin haddaad wax su'aal qabtaan ama talooyinka ku saabsan soo qora maanta casharkeenu kama aha meelaha la buuxbuuxinay ama idinku aad ka soo jawaabaysan su'aalaha waxaan idiga rabaa wixii su'aal idigu soo dhacda maanta waxaan doonaynaa inaan talooyinka la qaato aan insha Allah idinkanaan wax idigu soo kordhiyo marka wixii su'aalaad qabtaan ama aad u baahan tihiin soo qora insha Allah qodobka labaad ama talada labaad aan idin siinayo waxa weeyaan less grammar fara badan ha isku mashquulin grammar fara badan ha isku barlaad baan ugu celinayaa grammar ha isku mashquulin waayo tusaale kale waddankeena waxa ka jira intaasoo private hadday noqoto dhulka Soomaalida oo dhan dhaho way arday fara badan oo xamar jooga Muqdisho jooga oo jiraan kuwa Puntland jooga Garowe Boosaaso meel walba joogaan waxa lagu dawaqay ardayda waxa la dhaho grammar marka waa inaad marka hore fahantaa sababta grammarka lagu dhigayo bugaagta waddankeena la keenay waxa ay bugaag la keenay mudanada maxaa la dhahaa Ingiriiska sida bugaagta Oxford iyo bugaagta Cambridge waa bugaag aad u wanaagsan oo tayo fiican leh laakiin bugaagta Oxford iyo Cambridge waxa loogu talagalay dadka UK jooga ilmaha UK ku soo koray ee ku soo barbaaray ee ku dhashay ayaa loogu talagalay in buuga grammar ahaan isaga loogu dhigo marka buuga grammarka qofka marka loo dhigayo waxa laga filayaa ama oradii la og yahay inuu qofkani luqadii hore u yaqaan qofkani maxay inuu luqadii hore u yaqaan waa qof English u dhashay marka ilmo yaro UK ku soo dhashay ku soo barbaaray markuu 12 jir gaaro buuga Oxford ama Cambridge ka loo bilaabo ama grammarka loo bilaabo kiiba Hargeysa la keenay private-da marka la furay macallimiinta kiiba bay dhigaan marka lama yaabani waayo waxa weyn macallinkana khibrad isaga intuu leeyahay uu ardayga gaarsiin kara waayo waxaan uu ogeyn macallinka ardayga uma dhigi karo marka macallimiinta waddankeena inta badan waxaad aragtaa waxay soo barteen 12 tense baan ardaydana la sii xifdisiyo marka ardayda 3 sano 2 sano 12 tense bay ku wareegayaan ardayga oo dawaqay luqadii kaniya jabay waxba fahmi waayay hadalkii ana wali soo saari karin grammarkii kor buu ka hayaa haddana laakiinse markuu ku leeyahay koob shaah ama dalbado ama email yaraan qoro ma kari karo marka waxyaalo badan baa naga qaldan wixiinaan toosanaan u baahnaa insha Allah marka ardayda inay fahanto marka grammarka waa muhiim laakiin xagga hore lama mariyo grammarka waxa la dhahaa
waa mathematics of language waa xisaabtii luqadda waa kow iyo kow isku geeyo laba one ku dhufo ka jar marka waxa weeyaan waa mathematics of language waa complicated marka qofka grammarka baranaya waa qof luqadda asaaskeeda hoose kasoo dhisan qofkaas oo kale ayay muhiim u tahay inuu barto grammarka sida qoraalkiisa ama writingkiisa uu sax noqdo laakiin qofka hadalka imika baranaya ama luqadda ku cusub grammarka uma baahna marka anagoo manhajkan u dhigno labada buug ee ugu horeeya ardayga dhanaya 6 bilood ee hore xabad grammar wax 2-3 grammar baa ku jira inta kale waa wada erayo ama jumlado fara badan iyo sheekooyin inuu ardayga bato marka inta insha Allah waxaan doonayaa inaad ka fahantaan markaan yara eego wixii su'aalo la soo qoray ma sha Allah okay Abdurrahman waxaan qori karaa waan akhrin karaa kuma hadli karo dawaataan imika ka sheekeynayna ardayda Soomaalida inta fara badan waxaan arkaa qoraalka iyo akhriska aad baad ugu wanaagsantiin intiina badanayna daawanaysa qoraalka iyo akhriska Englishka waad ku fiicantiin laakiin ku hadalka ayaa aad idiga dhit waxyaalaha keenayna waxa weyn grammarka inta la soo warisi grammarka qofka hadduu xoog saaro waxyaalo fara badan ayuu caqabad ku noqonayaa qofkiina wuxuu ku noqonaysaa fikir marka waxa dhacaysa oo kale tusaale kale qofkii intuu fikrayo waayo mathematics tusaale kale markaad leedahay tense-kani waa maxay okay present perfect haddana waxaad kala saaraysaa ama present continuous ba intii aad fikrisid ayaad adiguna maxay waqti qaadanaysaa ayaad leedahay marka hadalkii kaama soo baxay waayo xisaabaad wadaa luqad ma wadid xisaab intaad wadid waxaanina ku hagaagi mayaan marka muhiimaddu waxa weeyaan adigu inaad fahantid waxaan inay yihiin luqad maahana mathematics markay noqoto writing ama thesis haddaad qorisid ama essay aad qorisid markaasoo kale baro maxaa la dhahaa grammarka laakiin inta hore ha isku dawaqan talada saddexaad aan idin sheegay waxa weeyaan phrases and sentences arday fara badan baan arkaa markay soo galaan macallin vocabulary baan doonayaa kun vocabulary soo dir ama buuga vocabulary soo dir ama erayo fara badan baan u baahanahay waa sax erayo fara badan waad u baahan tahay laakiinse ereyga keligii macna kuma sameynayda ereyga keligii inaad baratid dee wax faa'iido kuma keenayo waxa kaaga wanaagsan oo ardayda anigu mar walba aan la talino manhajkeenaba uu ku salaysan yahay inuu ardayga barto wixii isagoo jumlad ku jirta phrase marka la dhaho ama sentence waxay ku kala duwan yihiin midna waa hadal la isla garanayo ama jumlad ahaan marka intaa kuwa aad baranaysid ayaa kaaga faa'iido badan intaad baran lahayd erayo khaas waayo markaad hadlaysid luqadii dee maaha erey dadka inta badan hadday vocabulary fara badan bartaan oo keligii ah waxaa ku dhacda jumladii markay isleeyihiin ku hadal ereygii af Soomaali bay kusoo turjumayaan waayo wixii af Soomaali bay ku turjumayaan markii hore markay baranayeen af Soomaaliga bay soo raadinayaan haddana English bay ka dhigayaan haddana ereygii ku xigay haddana ereygii ku xigay waqti dheer bay qaadanaysaa waxaad soo marinaysaa process dheer oo dee sida maskaxdaada caadiyin saas uma shaqayso waxaana soo xasuustaa markii aad af Soomaaliga baranaysay af Soomaaliga markaad baranaysay dee markii ugu horeysay 2-3 kalmadood baad baratay laakiinse markii ku xigtay waxaad baranaysay jumlad ama sentence ama wordi dhamaystirnid af Soomaaliga aad ku baranaysay marka Englishkuna saas oo kale jumlad wax u baro marka erey u kala saar fahan laakiin markaad ku dhawaaqasid ama aad isleedahay waxaan baro jumlad dhamaystiran isticmaal hi how are you ama I am going to my class jumlad dhamaystiran baro marka jumlado badan markaad baratid hadhow ku hadalkaaga uu ku fududaanaya insha Allah waayo erey uma raadinaysid already automatically waad garanaysaa say isku daba xigaan luqadda imika inta badan dadku markay intaasoo sano soo dhiganayaan ama native ku yihiin markaan anigu wax akhrisanayo kale waxa laga yaabaa ereyada soo socda kale automatically waan garanaya waxa ku xigi doona waayo waxaan wax soo noqonayo marka phrases iyo sentence baro individual words iska yare inaad maanta oran dictionary-ga ku jirtid waqti badan ha iskaga lumin waxa kaaga muhiimsan oo kaaga wanaagsan inaad jumlad u baratid luqadda jumladda ku dhawaaqeeda sax jumladda markaad fahantid ku xigsi jumladda kale word kolba word inta markaad fahantid kolba jumladda macnaheedu markaad fahantid isticmaal aduguna hadhow markaad jumladda labada erey ama saddexda erey aad ka kala bedeli kara kolba erey baad ka bedelaysaa jumladii marka waxay noqonaysaa 20 jumladood kolba markaad 20 erey ka kala bedeshid hadhow waxaad arki doontaa adigoo si yar fudud uga hadlay insha Allah practice way baad ma sha Allah very good aad baan idin wada salaamaya okay maxamed marka wuxuu soo qoray waxaan rabaa inaan casharada sideen ugu soo biiri karaa aad marka ardayda cusub oo dhan waxaad samayn kartaa lambarada xagga hoose ama xagga sare ku qoran markuu fiidiyoga dhamaado lambarka WhatsApp-ka madka la soo xiriirsan insha Allah
waxaan aan teacher aad kugu raacsanahay pointka kii wacan ka Soomaali ahaan waa grammarka we need more speaking and reading very good waa si wanaagsan marka qaybta ku xigta markaasuu sheegay walaalkeen Cabdiqani Mahad speed reading waa qaybta reading ku sheegay ku hadalka markaad ku hadlaysid waxa weeyaan waxyaalaha ugu horeeya la barto marka talooyinkan oo dhan waxaan ku sheegay ka ugu dambeeyaan ku sheegi doonaa speakingka marka imika readingka marka la leeyahay speed reading waliba anigu waxaan u jeedaa speed reading horta si gaar ayaa khaas u tahay marka dadka inta badan waxay sameeyaan kuwa professionals ama educational academicska speed reading bay waxyaalooda ama markay buugta waaweyn akhrisanayaan ama journalska ama thesiska speed reading kaas ayay ku takhasusaan laakiin adiga saas uma jeedaan waxaan ka doonayaa waxa weeyaan akhriskaaga inaad mobilkaaga soo saartid maalinta page-ka ama book aad akhrisanaysid bookga markaad akhrisatid kadib aad waqti isu qabatid marka bookga ama halka page intee leeg baad ku akhrisay tusaale kale maanta waad akhrisay waxaad ku akhrisay bookga 4 daqiiqo page-kaas oo dhan waxay kugu qaadatay inaad ku akhrisid 4 minutes 4 daqiiqo haddana ku celi ilaa intaad waqtigiisa 4 daqiiqaad wax ka soo yareynaysid adigoona erey ka tagin inaad ku soo celisid ilaa inta waqtigaasi maxay ka yaraanayo 4 daqiiqo ama 3 daqiiqo ama 2 daqiiqo halkaad kaga bilowday marka hore inaad kala barkiis aad keeni kartid dhowr maalmood kadib marka saas inaad ku celisid speed reading baa dhaha marka waxa laga doonayaa inaad adigu la qabsatid carabkaaguna la qabsado waayo luqadda waa sida kubadda oo kale macallinkuna waa sida coach oo kale inta badan dadka dhalinyarta kubadda aad u jecel yihiin wala anigu waan jeclayn laakiin saalaan disinaya si aad u fahantaan coachka isagoo kubadda uma ciyaarayo ciyaartooyga ayaa garoonka dhex taagan oo ordaya oo ciyaaraya laakiin coachka isaga waxa weeyaan hawshiisa waa inuu tilmaamtii siiyaa halkay dadku marayaan ama qaabka loo ciyaarayo talooyinka waa isagu wuxuu arkayaa waxyaale inay ciyaartooyga kale aan arkin marka isaga jadwalkii iyo nidaamkii iyo hawlgalkii wixii buu diyaarinayaa macallinkana waa saas oo kale marka waxaa loo jeeda waxa weeyaan intaa uu ardayga u baahan yahay ku dhaqaaqa inuu macallinka waddadii tuso laakiin ardayga ku xiran tahay inuu isagu maalin walba soo kaco inuu kubaddii ciyaaro uu kubaddii maalin walba laago uu 10 jeer garoonka ku soo ordo uu maanta oo dhan dhidido luqadana waa sidaas oo kale anagu waxaan ku tusi karnaa waddadii iyo nidaamkii loo raaci lahaa iyo talooyinkii laakiin adigu haddaanad dadaalkii la imanayn marna barmaysid adigu haddaanad maalin walba saacad ugu yaraan saacadada 2 saacadood ama 3 saacadood baa fiican laakiin maalintii ugu yaraan saacad haddaanad siinayn ugu talagal inaanad hadafkaad leedahay inaanad gaari karin waayo sidaadan kuu sheegaya waqti aad TV daawanaysid baa jira waqti aad social media ku jirtid waqti aad asxaab la sheegsanaysid inta 3-4 saacadood maalintii ayaa ka lumis ugu yaraan marka ardayda qaar baa kuna samacna mashquul bana ma aha mashquul TV ma daawataan ku weydiiya social media ma ku jirtaa Facebook intee laga wad ku qaataa YouTube intee laga wad ku qaata waxa soo dhan horta iska jir qofka hadafka dhabta leh waxyaalahaas uu ka tagi karaa waayo dantiisa inuu raacayaa muhiim ah okay marka akhriskan waxaad sameynaysaa mar walba buugga soo akhriso isku day inaad kolba waqtigeed maalintii hore ku akhrisay waqti ka yar hooseeya ama ka yar kooban aad ka keentid insha Allah okay talada ugu dambaysa marka number 5 translation ardayda inta badan markay luqadda ku cusub yihiin waa muhiim inay luqadda maxay turjumaan ku qaataan waayo anigu waxaan aaminsanahay mar kastaba haddii adood leeyahay ama dad waaweyn luqadda baranaya tihiin wixii af Soomaali waad ku garanaysaa waxaad u baahan tihiin horta inaad af Soomaaliga iyo Englishkaad isku xiri kartaan laakiin markay noqoto hadhow ku hadalka saan idin sheegay speakingka waxa laga doonayaa inaad translationka inaad ka gudubtid dhowrka bilood hore luqadaad baranaysid dictionary-ga soo qaado ereyga af Soomaali ku raadi ama ha lagu turjumo ama ha lagu fahansiiyo anaguba manhajkeena waxaan sameynaa buugaagta ugu horeeya ardayda buugga koowaad iyo labaadba ardayda 10 af Soomaali baan ugu wada sharaxnaa marka ardaygaasi markuu labada buug ama 6 bilood markuu dhameystiro 10 oo dhan af Soomaali lagu sharaxo buugga saddexaad sharaxaad af Soomaali waanu ka yareynaa waayo waxaan doonaynaa inuu ardaygaasi imika maskaxdiisa ereyadiisa ama fikirkiisa inuu English isku bedelo imika tusaale kale markaad af Soomaali ku hadlaysid dee maskaxdaada ma fikiraysaa ereyada ma raadinaysid hadalkii wuxuu ka soo baxaya sida biyaha daadinayo kale marka waxa laga rabaa think in English inaad heer ka gaadhid xagga waad ka bilaabi kartaa waa laasim inaad wixii marka hore turjuntid laakiin weligaaba turjumaad ha ku jirin weligaaba turjumaad ha taagnaanin waa inaad ka gudubtaa inaad heer gaadhaa aad ku fikiri kartid think in English marka fikirkaaga inuu English noqon karo ama think in Arabic think in Chinese think in Turkish luqadaad baranaysid tay noqoto ahaat waa inaad maskaxdaada gaadhaa heer
ku fikiri karto dadka qaar inta badan waad maqashay nin baa iska socda wadada oo isla sheekaysanay marka qof baa ku yiri maxaa kugu dhacay hore dadka oo dhan isla sheekaysan waan seerin maqashiniyon marka aad bood isla sheekaystaa dadka oo dhan isla wada sheekaystaa marka maskaxdaada codka yar ee ka dhex socda af Soomaali ku hadlaa Soomaa codka yar baa la doonayaa isagoo English ku hadlay inaad heshid codka yar ee ka dhex socda maskaxdaada marka aad wax isweydiinaysid ama aad wax ka fikiraysid inuu English marmar ku hadli karo that's what we mean by thinking English taas loo jeeda okay marka aan su'aalahan diyaar insha Allah aad baan idin wada dhaweynayaa xamse maxamed soo dhawaha lacagta ay mise walaal fiiga information WhatsApp ka marka hadii lagu sheegay fiiga marka macluumaadka lagu soo laga soo qiimeeyo kooban oo jaban insha Allah Abdullahi Jaahid ma sha Allah waxaan ahay arday wax ka barta college-kan waxaan rajaynayaa inaad wax ka bedeli doontaan hanaka waxbarashada Soomaaliya ku hadalka luqadda insha Allah aad baad maasantahay ardaydii hore weeyaan deeqo maxamed thanks my teacher waa ardaydii hore Cabdisamed ma sha Allah aad baad maasantahay marka ardaydii hore ku cusbaa isku dhex jiraan dhammaan aad baan idin wada salaamaya insha Allah علي مهد ياش يا إبراهيم شاكر عبد الله علي كل واحد السلام يا ما شاء الله جزاك الله خيرا waxaan jecel horta inaad intan ka faa'iideysateen cidii dhexdeena ugu soo gashay fiidiyoga ama inta dambe waxaad sameyn kartaan fiidiyoga markuu dhamaado page-ku soo ayaa la soo dhigi doonaa kullu soo galaya dib baad u daawan kartaa marka waxaad soo qartaan inaad arday cusub tahay ama arday hore u dhigan jiray iyo share-kan inoo taabto insha Allah si dad kale oo badan uga faa'iideystaan aan wax ka bedelno waxbarashada luqadda ay dhalinyar badan baa runtii caqabado badan ay ka haysataa oo waxyaalo badan ay ka hortaageen haday noqoto interview shaqooyinkii haday noqoto jaamacadihii haday noqoto scholarship-kii dibadaha waxyaalo badan bay luqadda inagu xidheen marka waaska waa dhibaato masiibadii loo sheegay laakiin wax weyn mar walba xaaladda lagu sugan yahay baa loo raadiyaa xalkii looga bixin lahaa marka insha Allah dhalinyarta iyo ardayda baa ka faa'iideysato si luqadda si yar oo fudud u bartaan yaana lagugu dawaqanin 2-3 sano luqad aad ku baran kartid sanad gudeed insha Allah intaas aanagana talaa aad baad u maasantiin wixii su'aalo kala duwantiin mar walba message-ada nagala soo xiriiri kartaan idii u baahan macluumaadka dhowr ardayna soo weydiisaan adigu sheegay lambarada xagga sare ama xagga hoose ku qoran WhatsApp-ka kala xiriira macluumaadka dhamma xagga sad ka helisan jazakumullahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh